kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo mucaaridka oo ka hor yimid magacaabista golaha adeega garsoorka Soomaaliya oo dhawaan golaha wasiiradu ay meel mariyeen madaxweynaha Mareykanka oo gudaha wadankan ka mamnuucaya adeega TikTok ee muuqaalada baraha bulshada TikTok waxa lagu eedeeyay inay xogta dadka Mareykanka u gudbiso dawladda Shiinaha qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay bulshada rayidka ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin mucaarid ayaa si weyn uga hor yimid isla markaasina sharci darro ku tilmaamay talabada golaha wasiirada ee xukuumadda la riday ee ku meel marisay xubnaha golaha adeega garsoorka Soomaaliya iyo waliba hay'adda batroolka Soomaaliya qoraal ay soo saareen isutaga ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda iminka golaha shacabku uu kalsoonida kala noqday 25 bishii July aysan awood sharci ah u lahayn magacaabista golaha adeega garsoorka oo iyagu lafdhabar u ah garsoorka dalka iyo waliba tala bixintiisa dhinaca kale xisbiga mucaaridka wada jiraya qoraal uu soo saaray ku sheegay in si hareer marsan dastuurka iyo sharciga ee xukuumadii dhacday u ansixisay xubnaha golaha adeega garsoorka ashir ay yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda kalsoonida lagala noqday 30 bishan ayaa lagu meel mariyay 5 xubnood oo mid noqonayo golaha adeega garsoorka iyo waliba maamulka hay'adda batroolka Soomaaliya ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in xukuumadda ku meel gaarka ay kaliya fulin karto shaqo maamuleedka dawladda balse aanay waxba magacaabi karin dawarlayaasha xiriyaha dhadhaab ee wadanka Kenya ayaa shaqo abuur ballaaran ay u noqotay tolista maskarada afka lagu xirto ee looga hortago cudurka COVID-19 talabadan ayaa imaanaysa kadib markii hay'adaha samafalku ee dawarlayaashaasi maalgeliyeen si ay u soo saaraan maskaro bilaash ah oo afka lagu xirto si markaasi dadka ku dhaqan xiriyaha dhadhaab si lacag la'aan loogu siiyo wariyaha VOA Cabdiwali Cabdi Maxamed ayaa warbixintan inoo soo diray iyadoo inta badan dadka qaxootiga ah ay ka caban jireen shaqo la'aan iyo xanimaad dhanka isku socodka ah ayaa haddana waxaa u sii dheeraatay saameynta caabuqa coronavirus ee dunida faraha ba'an ku haya hase ahaatee waxaa jira qaar ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo iyagu cudurkan ka dhex raadinahaya fursado shaqo kuwaasi oo bilaabay in ay sameeyaan maskarooyinka afka lagu xirto islamarkaana hay-adaha u bandhiga wax soo saarkooda si looga iibsado nahay harqaanleyda xogaho waan ka faa'iidnay maadaama ay dhaqaalihiisa aad u yar yahay laakiin haddii wax badan la tasho macnaha dhaqaalaha ka soo baxayo marka dadkeena aan ku caawino aan dadkeeni aan u tolno oo aan iyadana way iska wanaagsan tahay maadaama dadkeeni gift lagu siinayo ama bilaash lagu siinayo marka ma xumo xogaho dhaqaalaha naga soo galay dhaqaalahaasna adiga macnaha reeraheena aan ku biilanaa dadkii macnaha harqaanleydii oo kulli baa ka wada qayb gashay adigu hay-adihii baa na siiyey sida macnaha yeeb NRC kuwaasoo dhan macnaha way nagu caawiyeen waxay yiraahdeen noo tola annagana waan u tolnay dhaqaalaheena way na siiyeen saa markii loo tolana way ku soo gelinayaan lacagtii way ku siinayaan wax lacagtaada laga reebanaya ma jiraan marka dhaqaala wuu abuuray oo xogaho macnaha dhanka harqaanleyda ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa ku nool kumanaan dhalinyaro ah oo camal la'aan ah maadaama aysan jirin fursado shaqo oo u sahlahaya saamaynta ama in ay yeeshaan wax soo saar u gooni ah haddana iyadoo ay saa tahay waxaa jira qaar iyagu ka mid ah oo xaaladahani adag ka dhex raadiya fursado ay ku samaysan karaan shaqo abuur Cabdiwali Cabdi Maxamed VOA dhadhaab waxaa weli sii badanaya tacadiyada ka dhanka ah wariyaasha ka howlgala gudaha Soomaaliya laakiin taasi kama aanay hor istaagin dhalinyaro badani inay ku soo biiraan mihnada saxaafadda dhinaca kale waxaa taa barbar socda tababaro la siinayo wariyaasha cusub oo la xiriira anshaxa saxaafadda Hashim Sheekh Umar Agood ayaa warbixintana ku eegaya wariyaal dhawaan tababar lagu siiyay magaalada Boorama dhalinyaro ka shaqeysa saxaafadda iyo kuwo kale oo ku cusub ayaa la baray tababar la xiriira anshaxa saxaafadda iyo qaabka tabinta wararka iyo sheekooyinka sida loo sheego wararka adigoo ilaalinaya anshaxii saxaafadda ayuu ku saabsanaa wuxuu socday 3 cisho oo ilaa gelin hore gelin dambe ah runtii ardada ka qayb qaadatan waxay isugu jireen 2 qaybood qayb iska bilow ah oo markii ugu horeysay ay qayb hore advance wax u soo dhigatay oo tababarro u soo qaatay
marka tababarkan wuxuu si gaar ah u quseeyay maxuu wariyuhu iska ilaalinaya waa maxay waxyaalaha hagaya principleska yani mabaadiida anshaxa ee uu siga ka duulaya maxay tahay doorkiisu maxay tahay maxaa loo ogol yahay maxaan loo ogoleyn hadduu qaladaad ku dhaco sidee u saxaya adiga intaas ku saabsanaa si guud ahaaneed Siciid Xagaa ayaa sheegay in tababarkani ku keenayo isbedel xagga aqoonta shaqada ah dhalinyarada tababarka la siiyay wuxuu wax ka bedeli doonaan isleeyahay qaabkii wax u tabin jireen wararka iyagoo fiirinaya waxyaabaha laga maarmaanka u ah mabaadiida qofka wariyaha ah ee uu ku shaqeynayo dhalinyarada ku cusub tababarkan oo cabiray dareenkooda ayaa iyaguna sheegay waa tababarkii ugu horeeyay noocana aan ka qayb galo sida waraysiyada loo qaado sida loogu dhaxayn karo bulshada iyo dawladda waayo hadda ahaan tababarka muddadii socda waxyaabo badan baan ka faa'iiday laakiin nafteedu waxay dareemaysay in waxyaabo badan ay ugu dhiman yihiin oo u baahanahay wali inaan tababar kasii qayb qaato oo tababar badan oo u baahanahay khaasatan xagga tababarkan aan ka faa'iideysanay waxa weeye guud ahaan sidii wararka iyo barnaamijyada iyo guud ahaan waraysiyada oo khibrad badan iyo aqoon dheeraad ah aan maanta ka warbaahinta gobolka wadal ahaan iyo ka shakhsi ahaanba aan anigu ka faa'iideystay guud ahaan wariyaashay la midka ahaana tababarkan sidaa iyo si lamid ah ayay iyaguna uga faa'iideysteen inkastoo ay wariyaashu soo badanayaan haddana sida ay sheegayaan ururada saxaafadda u dooda waxaa jira tacadiyo ay kala kulmaan mas-uuliyiinta maamulada ay ka howlgalaan xilliyada ay ku guda jiraan shaqadooda warbaahinta Hashim Sheekh Cumar Good qubanaha VOA Boorama waddanka Mexico ayaa noqday dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan cudurka COVID-19 marka la eego guud ahaan wadamada caalamka sida ku xusan warbixin ay soo saartay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka Mexico waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan 48,000 oo qof wali waxaa dhimashada coronavirus ee dunida hoggaanka u haya waddanka Mareykanka oo ay ugu dhinteen COVID-19 in ka badan 153,000 oo ruux waxaa ku soo xiga waddanka Brazil oo COVID-19 ka dilay dad gaaraya 92,000 oo qof dalalka Philippines iyo Vietnam ayaa iyaguna soo wariyay kiisas hor leh oo la xiriira COVID-19 ruushkuna waxa uu maanta sheegay in bilaha September ilaa iyo October uu bilaabi doono tallaal looga hortagayo coronavirus kaasi oo la siin doono dhammaanba shacabka ruushka hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin ah oo laga hayo nuuca dawada iyo tijaabooyinka la xiriira dawadaasi ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu maanta saxiixayo amar gudaha waddanka Mareykanka looga mamnuucayo adeegsiga TikTok waa adeeg baraha bulshada muuqaalada la isaga baahiyo waxaana laga leeyahay waddanka Shiinaha talabadan ayaa ka dambeysay kadib markii hay'adaha amniga Mareykanku ay walaaca ka muujiyeen amniga xogaha dadka Mareykanka ee adeegsada TikTok xilli ay soo dhawaatay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November talabadan ayaa dhabarjaba ku noqonaysa shirkadda ByteDance ee dalka Shiinaha oo ah shirkadda leh TikTok aaladan ayaa noqotay tan ugu gulaha badan shabakadaha baraha bulshada ee Shiinaha kadib markay noqotay mid caalami ah tartanna la gashay Facebook, Instagram iyo Snapchat oo ah aaladaha caanka ee warbaahinta bulshada kuwaasi oo dhammaantood laga leeyahay waddanka Mareykanka TikTok ayaa beenisay eedaha in dowladda Shiinaha ay maamusho amaba ay la wadaagto macluumaad la xiriira dadka Mareykanka adeegana TikTok waxaa la qiyaasay in gudaha Mareykanka ay isticmaalaan in ka badan 80 milyuun oo qof waagaag daawadayaal haatanna waxaanu doonaynaa inaynu saxno war aanu si qalad ah ugu sheegnay barnaamijkii qubanaha ee Khamiistii baxay kaasi oo aanu ku sheegnay in shirkadda Somtel ay soo qaban qaabisay barnaamij dhalinyarada guurka laga caawinayo laakiin shirkaddu Somtel ma aanay ahayn ee waxa barnaamijkaasi dhalinyarada guurka laga caawinayo soo qaban qaabisay shirkadda Telesom daawadayaal barnaamijkii qubanaha maantana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar kale barnaamijkan lamida dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascad iyo dhammaan baabahada qubanaha idile sida iyo ciid wanaagsan